Soomaali ha noolaato Soomaali ha noolaato waxaan rabaa kulli ummadda Soomaaliyeed oo halkan caawa isugu timid waayeel iyo dhalinyaro iyo gabdho cid walba leh aqoon-yahano culamo waxaan idinku salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maxaad aragtaan midnimo ma aragtaan maxaa idin muuqda midnimo soo maaha waxaan rabaa inaan halkan idinkaga caddeeyo Soomaali waa midowday shacabkeedu waa midoobeen qabiil iyo qurunkiisa waa tuurnay waxaan idinka rabaa walaalayaal halkan caawa heshiis inaan ku galno cid walboona maqlaysa annagu waxaan qaadanaynaa hawl idinkana waxaan idinka rabnaa hawl inaan qabataan annaga hawshaan qabanayno waxay tahay inaan ka shaqeyno midnimo macnaheedu waxay tahay dawlad qurxoon midnimo macnaheedu waxay tahay dawlad wanaagsan midnimo macnaheedu waxay tahay horumar iyo ummad Soomaaliyeed waala ah midnimo waxa weeye wixii aan ku soo gaarnay 60kii laga soo bilaabo ilaa 90koodii dal sharaf leh oo adduunka ka magacaaban ummad hore u socota iyo dad waala ah hawshaasi waxaa nagu ballana oo halkan aan caaw taagannahay inaan ummadda Soomaaliyeed hore ugu marino midnimadii lagu yaqaanay iyo waaltinimadii lagu yaqaanay inaan soo celinno macnaheedu waxay tahay midnimadu waxay leedahay amni inaan ummadda Soomaaliyeed nabadgelyo ku soo celinno insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo nabadgelyadu shaqay u baahan tahay waxay tahay in shacabka Soomaaliyeed ay kala shaqeeyaan nabadda kala shaqeeyaan walaalayaal fariista waxaan anagu ballan qaadaynaa annagoo gacmaha haysanna oo mid ah inaan amnigii Soomaali lagu yaqaanay aan ku soo celinno oo qolada shayaadiinta ah ee aan dalka ka saarno weliba annagoo hore ugu baaqnay magangelyo inaan siinno intooda nabadda rabta inay ummaddooda ku soo dhex noqdaan waxaan ballan qaadnay siyaasad midaysan inaan ku howlgalno siyaasad mid ah isqabqabsi aan lahayn oo wada shaqayn leh laga soo bilaabo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo xukuumadda iyo baarlamaanka iyo sidaad caawa aragtaan dowlad goboleedyada siyaasad aan qaybsanayn tala wadaag ah wada shaqayn leh yaan ballan idinka qaadnay caawa waxaan ballan idinka qaadnay dastuurka inaan wax ka hagaajino saxno oo kumeelgaarka ah si uu noqdo dastuur ka turjumaya rabitaanka shacabka Soomaaliyeed waxaan ballan qaadnay inaan dhaqaalaha Soomaaliyeed dib u soo celinno sida aad maqlayseen oo Maryam Mursal ay sheegtay waa dhab dalkeenu waa qani inaan gudaha u galno waxa aan haysanno maxaa yeelay waxaan haysanaa midnimo haddaan haysanno xoog yaan leenahay wax badan baan wada qabsan karnaa laakiin ummaddu markay qaybsan yihiin tallaabo ma qaadi karaan shabaab iyo ummado kale ku dhex jira waxa weeye inaan soo saarno khayraadka ummadeenna dalkeennu waa dal qani ah aan ka baxno saboolnimada iyo faqriga dadkiina halka joogana dib ugu soo noqotaan dalka insha Allah idinka caruurtiina taasna dalku wuxuu gaari karaa 4 sano soo socota hadduu Ilaahay yiraahdo maxaa yeelay 4 sano waa muddo dheer haddii ummadda ay wada shaqeeyaan kalsooni ay ka dhaxayso midnimana ay leeyihiin dhaqaalaha dalka ku jira hadday noqoto xoolo bad iyo hadday noqoto beero iyo macdanta gudaha ku jirta kulli waxaan ballan ku qaadanaa inaan soo celinno oo weliba wax la yiraahdo resource share aan galno oo cid walba oo Soomaaliyeed
ay qayb ku leedahay wixii dalkaas uu leeyahay walaalayaal idinku waxaan ka rabnaa marka shacabka Soomaaliyeed annaga kaligeed ma shaqayn karno dowladnimadu waa idinka annagu waxaan nahay adeegayaal si fiican ii dhagaysta idinkaa iskale dowladdana haddii aad doonaysaan inay noqoto dowlad shaqaysa waa inaad garbo u noqotaan oo aad garab istaagtaan oo aad la shaqaysaan oo aad ka tagtaan qabyaaladda iyo dhibkeeda aad ka tagtaan qofka siyaasiga xun haddaad aragtaan inuu wax maroorinayo oo khalad samaynayo oo dadka isku dirayo oo qabiilka rab inuu soo celiyo qabta ha hor ordina 27 sanaan ku jirnay qaybsanaan iyo qabyaalad waa noo shaqayn weydi waxaan noqonnay annagoo dad waala ah oo wax walba wadaagna in maanta dad waalaheenna oo iyagana afrikaana ay nagu kala dhex jiraan oo na kala waardiyeynayaan annagii waa ceeb wey waxaas taasna waxaa noo keena waa naqannaa waana ka gudbaynaa idinkaana laydinka rabaa dowladdan hadday rabtaan inay shaqayso oo nolol iyo nabad la helo inaad garab istaagtaan oo hadday wanaagsan tahay inaad garab siisaan oo aan idinkala dhex gelin hadday khaldan tahayna idinku aad qabataan waxaa laydinka rabaa inaad sharciga hoggaansanaataan bacdamaa dalkaanu yahay dal wanaagsan oo idin soo dhoweeyey oo gacmo idin siiyey oo waxbarasho carruurtiina siiyey oo waxbarasho idin siiyey oo gabadha walaasha Maryam Mursal tiri wuxuuna siiyey pension in aad sharcigiisa ixtiraamtaan oo aad la shaqaysaan oo kan xun oo ummadda dhibaaya oo alqaacidada aad u sheegtaan maxaa yeelay idinku dhex jiraa oo dhibaatadiin keenaya inaad la shaqaysaan oo sharciga ka shaqaysaan walaalayaal intiinaan oo dibadda jirta iyo qof walba Soomaali ah wuxuu u taagan yahay magaca wanaagsan ee Soomaaliyeed kulligiin waxaad tihiin ambassadors safiirad u tihiin ummadda Soomaaliyeed inaad noqotaan dad dalka matala oo heesta Maryam Mursal ayaan ku soo celiyay u diida dalkiina ceebta dalkiina u diida magaca Soomaaliyeed siduu ahaan jiray ku soo celiya qabkii aan lahaan jirnay ku soo celiya madaxa dhulka ka cishadii ciidda waa laga gudbay wixii xumaa waa laga gudbay annaga halkan aad ka aragtaan inaan ka gudubnay ciddan boo isku kindiraysa malaha waa dhab wey Soomaaliya waxay leedahay federaalku adduunka dhan waa ka jira Mareykanku ka jira Jarmalku ka jira Ingiriisku ka jira Kanadu ka jira eema federaalku waxa weeye waa ismaamul hoose laakiin dawlad dhexe oo iyadu matalaysa dalkii magacii Soomaaliyeed matalaysa oo ka shaqeynaysa difaaca dalkii inaan dalka lagu soo duulin badaheeda iyo difaacaysa xuduudadeeda oo difaacaysa dhaqaalihiisa oo immigrationkiisa difaacanaysa weeye dawladda dhexe laakiin maamulka hoose waxa weeye waxay gaaraysaa ilaa meesha ugu hooseysa heer tuula taas wax xun ma aha walaalayaal Soomaaliya way tagtay waxaan idin sheegayaa haddii dadkii hore ee SYL-ka ahaa oo 15 May aan xusi doonno dadkii dhalinyarada ahaa oo 13 ahaa wixii ay soo qabteen hadda intaan idin hortaagan waxay ballan qaadaysaa dalkaani inay hormariso inay horumarkiisa ka shaqayso inay midnimadiisa ka shaqayso inay Soomaalinimadii sharafkii soo celiso hadduu Ilaahay yiraahdo laakiin kama shaqayn karno idinkoo qaybsan idinkoo wali ciil u qaba qabiil dad walaalaan dad isdalaana dad isku dhaqanaana dad isku dhiigaana aan ka fogaano waxyaabaha foosho xun oo dalkeenii soo gaarsiin meeshuu taagan yahay midnimada waxaan ii sheegayaa haddaanu 3 bilood iyo dahad yahay waxa la ii soo dhaweynaya caalamka aad arkaysaan iyo sida qurxoon waa idinka adduunku wuxuu arkayaa dalkan inuu istaagay oo majuur noqday oo midoobay yuu arkaa iyo sida electionku u dhacay iyo sida u taageerteen dawladnimada weeye waxa la ii soo dhaweynaya aniga ma waxa la soo dhaweynaya waa idinka weeye haddaad doonaysaan
adduunka inaad ka heshaan sharafkaas iyo ixtiraamkaas iyo qadarintaas qabiilka hala dhaafo qabyaaladda hala dhaafo annagu waxaan idinka ballan qaadnay caawa waa aragtaan meesha aan wada taaganna waad aragtaan ballan ilaahay waxaan ku galnay inaan danihiina ka shaqayno ma maqlaysaan ballan ilaahay waxaan ku galnay